weli inaan arkin qof ka hadlaya oo micnaha ruuxan waa xun waaye hala joojiyo qof dhahayo weli ma arkin wallahi alcadiim weli ma arkin waxaana fiicnaan lahayd waqtigan hadda lagu jiro 2021 in Soomaaliya wallahi qabiil ba iska ilowdo waayo dee waqti ka dambeeya hawaya adduun weynaha wuxuu sii hiigsanayaa tiknoolajiyada iyo horumarka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري هذا داوديل بالكستو أجوكتان وولالك محبوب يوتيوب جانل كادا ونيسينا ومحبوب اوفيشال فضلا هديت هاي بوقش هذه كوبا سبسكرايب نصار هدي أظهرين ولا جوكتينا أدي هذا وما صدت هاي سيدو قال لايك نقول لي رجالي فكر كأنا كومنتس كسوديبو ديجو حرقة أدي هذا ما صدت هاي أنت أسكديب عن ربنا كهالله برنامج أيانتان كجري السوشيال ميديا dadka inta badan isticmaala social media ma loo sheekeenayo horta waxaa jira waxyaalo ay la socdaan laakiin kaliya u baahan in la xasuusiyo ayaantan sida ogtihiinba waxaa social media ka jirtay barnaamij si caadi ah in YouTube wax la soo geliyo Facebook laakiin hadda waqti xaadirkan waxaad u malaysaa sidii hore dadku inaysan ahayn dadka Soomaaliyeedna waxaad u malaysaa qaabkii wixii loo isticmaali jiray maahan qaab kale inaan u isticmaalno aniga Soomaali haddaan nahay hadda ayaantan dambe waxaa jira in social media si khaldan aad u malaysaa in loo isticmaalayo waxaa ka mid ah qaab qabiilaysan in hadda Soomaalida ay ku bilaabatay inay sameeyaan oo qaab qabiilaysan waxa uga hadlaan ama dadkii vamoska ahaa ay sameeyaan in qaab qabiilaysan ay maaragtay YouTube wax u soo galiyaan reehbel ba ayaantan socotay runtii wax laga fiican yahay qofku hadduu dee asxaab u leeyahay dad ay ku xiran yihiin oo intaas qof ay ku xiran yihiin haddii barita ka maalin ay wax yimaadaan faniskiisa dad ka mid ah ay wax ku gaaraan dee qofkaas qayb ka yahay isagana ka dambeeyay haddii dadkaas dib soo gaaro runtii ma fiicna social media waxaa fiican qofka wixii horta qaabka wanaagsan in loo isticmaalo baa roon mar kastaba oo intuusan qofku wixii sameyn horta inuu ka fikiro waxaan wax xunba mise wax fiican waaye aad sameynaysid ayaantan dambe way jirtaa in social media ay ka jirta reehbel waxa dee kulay Soomaalida looga bartayna ma ahan wax hore u jiri jirayna ma ahan in way jirtay qaab qabiilaysan in ay ka jirto Soomaaliya laakiin marnaba anay isma lahayn social media la keeni doonaa qaab qabiil ahaan in la isku soo ataago ama qabiil ahaan dadku isku maartay waliba waxaan kale oo aad ola yaabanahay weli inaan arkin qof ka hadlaya oo micnaha ruuxan waa xun waaye hala joojiyo qof dhahayo weli ma arkin wallahi alcadiim weli ma arkin dadka waxaad u malaysaaba inayba waxaan xadaaradan iyo dadka qaarkood inay ka faa'iideysanayaanba mana fiicna waxaa fiican qofka hadduu arko waxaan inay yihiin xumaato uu arko qofka horta inaad ka waaniso qofka ama ha kugu diido ama ha kugu yeelo aad iyo aad waxaa looga fiican yahay in social mediaha qabiil la iskaga dagaalo ama la iskaga maartay ama laga abaabulo in dagaal beelad waxa la yiraahdo la kiciyo waa laga fiican yahay waliba dadyo caan ah oo Soomaaliyeed aad iyo aad magacyo ku leh dadka Soomaaliyeed waa la yaqaanaa hayb markii loo fiirshaday quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay bad qabiilka in la isku garto ma ahana inaysan dadku sida hadda u isticmaalahayaan ee dagaalka ah in la isku ataago ama reehbel la isku dagaalo ay tahay wax ma fiicna aad iyo aad looga fiican yahay waxaana fiicnaan lahayd waqtigan hadda lagu jiro 2021 in Soomaaliya wallahi qabiil ba iska ilowdo waayo dee waqti ka dambeeya hawaya adduun weynaha wuxuu sii hiigsanayaa tiknoolajiyada iyo horumarka marka anaka waxaa fiicnaan lahayd Soomaaliya haddaan nahay in aan ka waantoon waxyaalahaas xunka oo dagaalada iyo dagaal beeleedyada la kicinayo iyo dadka qabiil ahaanta la iskaga horkeenayo waliba social media wuxuu ka mid yahay waxyaalaha haddii loo baahdo kumanaankum qof la kicin karo mana fiicna in dadka la isku diro waxaan dhihi lahaa dadka dhalinyarada
vamoska ah bulshada Soomaaliyeed magac ku leh inay ka soo hadlaan wallahi wali ma arkin waa arkay adugu dhalinyaro qabiil ka hadlayo oo oga hadlayo inuusan ahayn wax fiican qabiilka macnaha qabiil ahaan markii dadka la isku qabiil in maartay la isku heeb sheegto waa wax maartay qabiil in dadku isku hor yimaadaan wax laga fiican yahay marka waxaan jeclaan in laga wacyi geliyo qabiilka wallahi billahi dadkeena Soomaaliyeed oo dhan dadka sida dadka kale ee adduunweynaha ay u nool yihiin oo laga yaabo qofku inuusan aqoonba qabiilka maartay markaas uu yahay laakiin inay hebel inuu isku yaqaan kaliya marka taasna aad iyo aad inoo fiican tahay waxaan leeyahay wallahi wadankeena horumar u gaari lahaa laakiin inta badan haddii xataa bahalkii dadku laga yaabo inay hal meel ka soo wada jeestaan oo cadow inta yeeshan cadowgaas ka dhiciyaan waxaa ku kala dhex jira waa qabiilkii iyo reebel marka taasna horumar kuma gaarino marka aad iyo aad u baahanahay in ka wacyi geliyo sidoo kale dadka social media isticmaala ee dhalinyarada ah ee youtuberleyda ah ama dadka codkooda meesha dheer gaaro uma baahna qaarkood inta qaarka hadda kicinaya maartay qaab qabiilisan u hadlaayo waxa ka fiican in ay dadka codkooda meesha dheer uu sagaarin ay u hadlaan masaakiinta ah oo u baahan garabka oo macnaha maadaama qofkan codkiisu meel dheer uu gaaro wax badan uu ka caawin karaa qofkaas oo kale marka asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan jeclahay inaad videoga share gareyn doontaan inta jecel wanaaga sidoo kale jecel Soomaalinimada in Soomaalidoodo aad iyo aad u mahadsantihiin videoga halkan hadda soo gaartay like sidoo kale subscribe inoo saar asxaabtaadana u share garee aad iyo aad u mahadsantihiin waa inoo videogan iyo videoga xiga insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.